السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة سو دوادا ميل والبا جوجتين أصحابي جنال كوا قرح دمر أوفيشيال تو كسو دوادا هذه روح صبتاي وأيتاي مركي كوريسي فضلا محكا عصنايا جنال كنا سبسكرايب سارتو لايك سارتو سي شير غريسو هدي أذنكو عسبين ودور إلي جوجتيني لايك تنو سار aad iyo umahadsantahay. marka koowaad ilaahay ayaa mahad iskale oo mahad celinayaa. marka labaadna idinka ayaa mahad iskale oo halkan isoo gaarsiiyey. marka asxaabteyda qaaliga ah ayaan jeclahay soo dhawaadeen idin leh mar koowaad iyo mar labaadba. asxaabta cusub ay ku soo biirtay oo subscribe-ka ii saartay ayagana aad u mahadsan yihiin. asxaabta imaad doontane sidoo kale soo wada dhawaadeen idin leeyahay dhammaantiinba. asxaabteyda qaaliga sida aragtiin maanta halkaas waxaan idin wadaagayaa maraqaas waa maraq cad ama maraq hargabka loo isticmaalo. marka hadda hilibkeeni halkaas soo dhiganay. maraqan maanta waxaan u isticmaalayaa hargab. weli codkeyga waa dareemaysiin sooma xabeebta uu ku reebay. hadda hargab iyo mahaayo alxamdulilaah ilaahay ha mahad iskale. laakiin cunuhu ikala gooyey. marka alxamdulilah ilaah mahad iskale. codku xabeeb iga geliyey. marka dadna maalin walba iska suubsadaan, dadna maxaa la dhahaye marmaray iska suubsadaan siiba. laakiin maraqa herka markuu kugu dhaco ayaa aada loo isticmaalaa. marka ani maraq maba jeclibo, ma ka heli. dadaan ka helin dadna way jecel yihiin. marka alxamdulilah ilaah ayaa mahad iskale. marka hergabka ayaan u isticmaala. markuu hergab kugu dhaco maraqa ku orday waxyaabo badan aad ku ordaysaa oo si maxaa la hergabkaas aa ula dagaalantid. weliba ani caano iyo xalwo xataa waa isku karkariyey. maxaa la dhahay wuu duuban yahay. marka insha allah waa idiin soo geli doonaa haddii ilaaha idmo. asxaabteyda qaaliga aan jeclahay anoo hergab ihaayo haddana ma jiifanin oo hergab looma jiifto. laakiin hooyo waxaan ahay shaqayso oon badanaa guri joogin yaa. marka aan jikane maxaa la dhahaye badanaa war u haynin because subaxii qofku markuu baxo oo galabkii u imaado waxaa asaaba wuxuu cuno u baahan sooma. laakiin haddana gurigii iyo kontaroolkii iyo waa ka warhaynay hooyaa tahay mar walba. saas iyadoo ay tahay haddana waxawaaye awood ma weysid. waxawaa qofka laba meel mu qaybsamayo sooma. laakiin berihii aan joogay yaa maasha allah ilmaha xataa waa duceeyin aan ku dhahay jikada markii aan galay. sababta hooyo waa la rabaa jikada inay gasho oo maxaa la qof walbo hooyo walbo ilmo walba aan dhahay hooyadood waxay jeceshaha waxay hooyadood macnaha ilmahaas waxay jecel yihiin soori hooyadood waxay ay karisay. marka waxaan ku dhahay dhexdaan xirtaan ku dhahay waa jiranaha iyo jajaf iyo sheeko ma jirin sababtoo hergablo dhulka i dhigay. haddana ma aanan maxaa la dhahay ma aanan jiifanin oo shaqo bisaan aadin ma ogi gurigeyga waa ka shaqeynayay. xabteyda qaaliga ah ee aan jeclahay. marka halkaanayta maraqeeni hilibkii waa soo jajartay saa aragtiin. hilibka wax uu badnaa laakiin intaasaan kasoo qaatay. meeshaan dadka gurigaan jooga maraq ma jeclo oo ma ka helaanba ilaahay amarkiis anina lamidaan ahay. marka saas darteed kastaas yarta ayaan maxaa la dhahaye soo suubsaday nagu filan nagana badan. marka hilibka markaan soo diyaariyey waxaan ku dhahay waxaa waaye basashiyan soo jajaranay calaasha waxaan ka wadaa waa isku soo riridaa leh wax oo hadda oo la shooteynayo ama saas oo loo qiimeynayo ma maraq la suubinooya jag waa la isku soo ridaa yaa. waa kaasaa dabkii aan soo saartay. dabki ayaan soo saartay. maxaa ii gale camal yaa aan waxyaabahaasaan oo kaleeto maxaa ii galaan dhaha basashiyaan kusoo ritay yaa. mabala is wareerinaya meeshaan. basasheedii aan soo jartay ayaan kusoo ritay. wallaahi maraqan wuxuu kusoo baxay maraq aan caadi iyo aad macaan badan maasha allah tabaarakallah. ilaaha mahad iskale. basal besaan kusoo riday iyo hilibkii waa kaasaa saas oo maxaa la dhahaye usoo karkaray. kadibna sidaa arkaysiin liinaan kusoo miiranooya. liinta dhadhanna waa u yeelay hilibkana wuu bislaanayaa oo 5 daqiiqo macnaha dhaqso bislaanaya. hilibka way kala goynay. marka liinta aad u wanaagsan tahay. liintaas kusoo miiraya waartii aan kusoo miiray
maraqii meeshaas basal kaliya leeba ku jirto iyo liin dhanaan lagu miiray. maxaa idinka hadlayay waxa kalan kusoo darsan doona arkaysiin kabsar caleen aan soo tifle iga dheh iyo tuun aan maxaa la dhahay oo idane aan soo jarjaray leh mala soo tumin ayaan kusoo maxaa la kusoo shubay aragtiinbu yaa marka waxa waa meesha mabalis dhibo wayaan ku leh maxaa iga galay camal waa anina sideedaba horta waxyaabaha maxaa iga galaan dhaha oo loo suubiyo macnaha oo hal mar aad kusoo shubtid oo kaleeto waxa waaye aad ila macaan yahay waxay la shootay leebaha marka maxaa idinka hadlayay asxaabteyda marka insha Allah way fiican tahay ina waxaaga habeystid laakiin aad maraqan wax ka halaysan malahan maasha Allah maraq aan caadi ahayn kusoo baxay asxaabteyda qaaliga ee aan jeclahay hilibkana aad u soo bislaaday marka macnaha uu bislaaday markii aan ka dejinaya ka wada marka asxaabteyda qaaliga hada insha Allah waa aragtiin waa isku soo daboolaya kadibna xoogaa ayuu dabkana xoogaa ayuu saarnaanaya waan u gaabinaya hadda waa kaasa waa kasoo degsanay maraqeynii hadda waa noo diyaar asxaabta qaaliga ah waxaa idinka iloobay oon kusoo daray filfil ayaan kusoo daray waa idinka iloobay filfil ayaan kusoo daray maraqa marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay hadda halkaasaa kusoo shubanaya asxaabee haddii marka hore maraqa haddii aad maxaa la dhahaye qabtid tiifuhu oo kale haddaa qabtid oo isku ogtaha oo kale dufanta waa iska bixine maraqa dufanta waa ka bixine haddii maxaa la dhahaye gaas qabtid oo kale aad isku ogtahay oo hergab kugu dhaco maraqa dufanta waa ka reebay markasta way fiican tahay inaad dufanta iska reebtid ani hadda wax dufane malahan marka dufanta waan ka reebayaa marka insha Allah markaan cabaay dufanta waan ka reebay iyo qof kasta oo isticmaalay maraqan dufan ma uusan cabin dufanta waxa fiican in la iska yareeyo maraqa sidiisa kale ayuu ku anfacayaa ama hilibka siyo laakiin maraqa ayaa aad ku anfacayo hergab markuu ku hayo dufanta laakiin muhiim waa inaad iska reebtid dufanta waxyaabo xataa jira ku qarsoon xataa haddii ay cabtid xataa waa kugu soo baxayaan marka intii maxaa la dhahay tiifo qorsagaara kugu qaban lahaa ama gaas oo sidoo kale asagana qorsagaara kugu qaban lahaa waxaa fiican maraqa inaad ka reebtid dufanta maraqa caadiga oo dhexad oo macnaha oo dufanta lehen ayaa ku anfacayo marka asxaabteyda qaaliga ah halkaas ayaan kusoo shubtay waa aragtiin maraqeeni hilibkan lafta waa aragtiin si uga dhacdhacday aad ayuu u bislaaday marka maraqan caadi ahna kasoo baxay maraqan waxaan u isticmaalay hergabka ayaan u isticmaalay markii aan qabay hadda wuu iga baxay laakiin codkiyaa weli xiran asxaabteyda qaaliga fiidiyoyaal fara badan oo intii aan maxaa la dhahaye oon guriga joogo idin diyaari ayaa jirto inkastoo janarkiga aan ugu talagelin maxaa la dhahaye cunto aan ugu talagelin haddana gurigiyaama joogay hawshan wax ka qabanaya soomahan bes waxaan dhahay kaamiradeeda ii soo bixiya aan duubtay maadaama ani aabo subsanoy yaa aan duubtaan dhahay marka saasaan idinkugu soo duubay fiidiyoyaal fara badan xataa ayaa janalka macnaha ayaa aan weli idin soo daynin oo ani ii duubanaa jiro insha Allah oo cod u baahan in la saaro kuwaasna waa idin soo dayn doonaa haddii ilaah idmo waa kaasaa maraqeynay maasha Allah tabaarakallah yaa ilaah ayaa mahad iskale ilaah ayaa mahad celinaynaa inta haysan ilaahu sii inta haysan ilaahu u barakay asxaabteyda qaaliga halkaan hadda ila soo gaartay like-ta iga iloobin iska reeb like-ta iska reeb halkaas like leen kugu leeyahay ha igala tagin waa codsi halka like iska reeb marka insha Allah sii share garay fiidiyogan haddii aad ka heshay like-tana waan kuu sheegay oo noo saar soo ku soo celiyaa la ahaada subscribe-na sidoo kaleeto noo saara marka asxaabteyda qaaliga aan jeclahay dawaakaasa soo dhawaadin adan leeyahay qurxintiina insha Allah waa idin soo gelinayaa inaan qurxin idin soo gelinayn ha u malaynina laakiin fiidiyoyaala ii diyaarsan kuwaas ayaa waxay iga rabaan cod inaan soo saaro janalkana aan soo geliyo haddii ilaahay idmo saas darteed ayaan fiidiyo idinkugu soo geli waayo oo qurxinta marka kuwii hore ugu jirayna way idinku filan yihiin saan jeclahay kuwa kalena waa idin soo geli doonaa asxaabay soo dhawaadaya idin leeyahay hadda halkaan ila soo gaarteen aad u mahadsantihiin waa idinka sii tagayaa waa anigoo qurux dumar official tour waxaa idinkaga sii tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
isku soo noqod dambe oo xiiso leh. Videogan video xigo inta aan ka gaarayno insha Allah.